mid ka mid ah dhalinyarada magaalada Cabudwaaq oo ku noolaa muddo magaalada ayaa waxa in ka badan 2 sano ka fadhiyay gaari uu ku shaqaysan jiray isla markaana uu ugu xamaalan jiray qoyskiisa waxaana ninkani dhalinyarada sidoo kale ay ka fariisiyeen in haba yaraatee uu sameeyo dhaqdhaqaaq uu horumar ku sameyn karo noloshiisa muddo 6 sano ah ayaa waxa ku dul noolaa jin balse awoodda alle iyo quraankiisa ayaa sahashay in shalay uu tago xarunta quraan saarka ee Daalul Amal ee magaalada Cabudwaaq waxaana halkaas joogay Sheekh Maxamed Rashiid Garowe oo xarunta madax u ah markii uu tagay xarunta markiiba waxa bedelmay miyirkiisa waxaana ka dhaxlay jin gala oo ku jiray muddo 6 sano uu sheegay muddadaasi uu ku dul noolaa in uu sameeyay in haba yaraatee uu san wax horumar uu sameeyeen gaarigii uu ugu xamaalan jiray caruurtiisa iyo qoyskiisana ay muddo 2 sano ka fariisiyeen walaalayaal jinku inaga ma aragno isagu waynu arkaa Allah subhanahu wa ta'ala waxa quraankiisa uu ku yiri innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna mar hadii isagu ina arko annaguna aanu aragnin waxa looga badbaadi karaa Ilaahay xarigiisa oo la qabsado salaadiisa oo la tukado adkaarta oo la akhristo xilliyada habeenkii ah meelaha qashinku yaalo oo aad ka durugto waa kan maslax oo kamid ah dhalinyarada aadka u firfircoon isla markaana u shaqaysan jiray qoyskiisa iyo familkiisa shalay marka uu tagay xarunta ilaajka Daarul Amal wixii halkaasi ka dhacay سيدنا قتاد هذا وفيعان إلهي كحمد إلهي باك وسوق المري عدو باك وحلي عدو إلهي باك أصار جل جلاله والله يا جن ودباتنا سولية نكا وجيسته وحي الكهر وذاك السر قابو عاجيان هبينك وعاجيان قار شغلي ومارته وكحنبي قار ظهارتي وكوسواسية قار مارتي عقل ودي أي مارته وحنبي وهيستا يضو إلهي أمرك أيكو هاريسو مركا إن شاء الله بإذن الله تعالى وحل الرباط عدو قاس إنه مارته إلهي وفيس كيسا إنه كقلب وإلهي مارته عبسيدي سبب بضيو تقوض إلهي علاقاتك تاس إنه مارته إنه كقبل بادنا الله وحليه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه isaga iyo maartay walaaladii ama qabiiladii meel idinku ayna ka arkaynin ayuu maartay idin ka arkaya marka walaalkeena aan u ducayna insha Allah inuu Ilaahay shaafiyo isaga iyo wixii uu dhibaatada u geystay jinnigu Allah shaafi wixii jinnigu wax yeelay Allah ka qabto Allah ka xifdiyo wabillahi tawfiiq intaasi kadib ayaa Sheekh Maxamed Rashiid iyo Maslax oo isla socdo waxa ay soo aadeen goobta uu yaalay gaarigu halkaasi oo markaasi uu si faahfaahsan jinku u sheegay dhamaanba waxyaabihii gaarigaasi uu ku sameeyay qalabkii uu ka bedelay isagoo fiicnaa balse haatan Allah subhanahu wa ta'ala qudradiisa quraankii lagu akhriyay kadib uu gaarigii noqday mid shaqeynaya isla markaana haba yaraatee aan waxba qabanin ninkan maxaa ka rabtaa Sheekh أنكن راعي وزور راعي هنا قدر نولاده أيه قال بنا قال بضح قبر دارك كسر راعي كسر راعي سو قاعد لا سعودة كسر راعي قبر دارك أيه لاميكا أيه قاعد يلربي قاري الله رفض أيه ما جبت أوش حبض ما قدرت أيه ناقصنا كوجرت waxaan ku jiray 6 sano gaariga la fariis 6 sano aye gaariga maxaa ku samaysay gaariga waan fariisay ya 4 sano markaan soo nin baa u gaday gaariga aye nin baa u gaday aye yaa u gaday nin baa u gaday aye ka hor baan ka fariisay gaariga intees ninkaas kale ku tacaaway ya ka hor baan meel kale ka kala jabiyay waal baan ka kala jabiyay aye kaas uu gacshay ka oo balaya akhista runta way maqlid gaarigu keeya hada gaariga ka fariisay keeya gaarigu ka way tus meesha ka fariisay tus dhaqso bas laftan inta ya tan lafta iyo wax kale raytora iyo raytora wax kale kama qabo away furii ma ما شاء الله كل شيء كاسا إلى كويت عامك كاس بلا يلا خرستا ما أخرستا ما أخرستا ما يمغل ولا دقيس سماذا إسلامي هو الإسلامي الإسلامي سكيت تجي سانك قلت يا أنت بديت أكرت أنت ميدك ترى فصبح تركيز أيه هذا سوي استقدر صح أيه أعوذ بالله من الشيطان الله قرآن يدا قرآن معي قرآن يدا قرآن يدا قرآن معي قرآن يدا شياطين الإنس قرآن كتجي كتجي سا فريرة سوي استقدر لا حوك كايست جايز دي
لحظة سنة لحسنا كيف لحظة سنة قاعد- أفر سنة بكان سعد بوها قاعد يقول تفدي والله سنة نسي عادي أنا وتنتامي ايه سكرت قاعد قاعد إيه ninka ay gaarigiisa ka tag maqso إيه soo istaag fariiro أتاقنا إيه gaarigiisa iskaga tag إذا كان مركي صنبر يا ماشو قشق يقول دم باكو شلي بالي تشين بلايا سيسان haddana waa lagu dilayaa hadda حالي تلي زوابة دي إسلام زي إسلام دي وضع شهادة قبرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله واقولي وروانا كتغيا معاك الله دي شكتي أنا ويهود بانا ولي قاي غران إسلام ما هاي حفتنا أنا كنت فتان قولي كاني قال الله خربي أنا أنت هايستي ما صدق ما كوش شاكي معاك الله دي كسير ها islaamnimo dhamma ka ahay دفي قطع أنا دورتي إسلام بانا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقدنا كافق يومي شهادة وبيتين الهيد وبيتين الهيد ما أدري سني كافر may maqli muslim ma dhibo inta islaamkan kaaga warramay may maqli muslim ma dhibo ma dilo أيه kuma xadgudbo أيه diintu waa wanaag أيه diintu waa sharaf أيه diintu waa heshiis أيه ma garat wariyaa may maqli ninkaa iskaga baxay أيه ما كنت جاي haddii aad ku soo noqoto ka war قصون قل ما يب gaariga xagee ka xun ii sheeg قاري وحكون ريتورا بيا وكوكا توكيز أنا كل شيء adaa kala jebiyey أنا ها نكاسن قدر كا وحق استعمال له حلو ما قولي سوكر الوجه kaalaade بارك كاس مارتي كاس هاي خبطي يعني كا كم يا؟ متك هاي خبطي haye متك مار gaariga waxa uu sheegaya ma ka xun maxaa ka wariyaa may maqli u celi xagee ka xun waxaan ka bedeloo dhan halkan ku jiraan halkan ka buuxaan soo dilo dhaqso kaana ka gooyin weligay baan ku aye kaas ay ilaahay ku taxalay kaas baalka waalkaana ka gooyi kan adaa ka guud anaa ka gooyi haye soo qabo kaana ka bedelay taa way ka khariban tahay taa anaa ku raftay waxba kama qabaan isaga u soo qaaday wariyaa dhegeysa kaale wariyaa ma joogtaa fariirada ku soo noqon maya dhaaro dib laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah dhaar ma والله بالله تالله يكون نقول مايو فيديو ولا ما قال ku celi dhaarta ورياس والله فيديو بالله تالله يكون نقول مايو خضر فيديو والله بالله تالله يكون نقول مايو ilaahu ka saar amiin ilaahu ka saar amiin ilaahu shaaf ilaahu gaariga waki ilaahu amiin وقتك dhaxda qabaad وقتك يا دمتم بوصل القرماية مع العيال عروتيسي وحي صدن وقدح بحيا مع الإسلانتي سواتشان شابي معيشو وحبا ما قبصتو وي بغتدي يدن وقتك يا islaanta maxaa ku sameeyay gabadha إسلانتا ماذا حان قبصدي aye ماذا حان قبصدي aye iskaga bax ركب بحيا وحدن iyo isaga iyo gaariga kulli ka bax يا عروتيسي يا وحدن وقتك carruurta wax ma ku samaysay عروتها maxaa ku samaysay عروتها أدبوا حرم صدان متكرون بمدح جايسي متكرون aye ma jirtaa halkaas مدح بوجا ويالا iskaga bax ninkaas أيه يمد كله dhammaan أيه. iskaga bax wariyaa أيه ilaahu shaaf ilaahu amiin ilaahu amiin bismillah allahu akbar iskana shaydaanka wariyaa magaca aye see noqotay awoodda ayaa iska leh jala jalaaluhu awoodda ilaahay baa iska leh ay maqli alaabtan maxay ahayd yaa soo guray gaariga waxaan ka bedeshay aye miyay jajabeen kan aye kaan hadda yaa soo dhigay meesha صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله بإذن الله تعالى ولا ليال شياطين الجن والإنس حينوها يسني مركي هورين إن مارتي بني آدم كاي دبان أو مارتي دباتضا يبقيستان لكن وحا مارتي أنا وقاني وصوب حضي نكان ولالكين غاريغاس إنو مارتي 3 سنة ويالي لما سنة هالكا ويالي
makaaniyiintiina maaragtay ay ku wareereen makaanigu waa inala joogaa waa inooga warrami doonaa insha allahu ninkaa qur-aanka xarunta ayaa la keenay ilaahay amarkii qur-aanka ilaahay ayaa lagu akhriyey jinni ayaa ka qaliyey jinkaasi waxa uu sheegay inuu isaga shaqadii ka fadhiisiiyey gaadhigana uu shaqadii ka fadhiisiyey waxaa kaloo uu sheegay in raytooraha uu dalooliyey wixii kale muxuu ah baakinkana inuu maaragtay baakinkana uu gubay raytoorahana uu dalooliyey marka insha allahu biidnillaahi tacaala qur-aanku baabuurta xataa dawi u yahay qur-aanku waayo ninkii gaadhiga iska lahaa mar haddii jinkii uu waxyeelay gaadhigiina waxyeeladii waa gaadhay sida uu sheegay raytoorihii ayuu ka dalooliyey ilaahay amarkii waxaa dhacday inuu sheegay intiiba isagu dhibkaa inuu u geystay oo isagana shaqadii uu ka fadhiisiiyey dhibaato xagga caafimaadka oo maaragtay uu ku sameeyey gaadhigiina 2 sano halkaa uu yaalla ilaahay amarkii waxaan rajaynaynaa gaadhigaas inuu ka baxo geerashka isagoo cagihiisa ku socda insha allahu biidnillaahi tacaala waxaan haddana maaragtay aan ka rabnaa makaaniga inuu nooga warramo gaadhiga intuu meesha uu yaallay iyo meelaha ay ka beddeleen iyo maaragtay xaalkiisa inuu nooga warramo gaariga wuxuu yaalay muddo 2 sano buu yaalay meesha awalkii hore baakin buu gaaro baakin buu loo keenay baakinkii markii laga bedelay oo la xiray dana raytoorihi buu qaxay raytoora markuu qaxiyo baakinka dana la saaray raytoora kale loo soo wixiyey haddana baakinkii ciladii waa ka dhamaan kabacdi haddana wuxuu gubay salafkii waxaa kaloo ka halaabay lafaha cirbadiya rabana u dhisto intaasoo dhibaato u geystay habba markii meel laga sameeyo oo meel kale kasii baxaysay meeshii la sameeyo meel kale isu marka haddana waxaa la bedelay teestaad iyo baaban ka bedelnay teestaad kalaa ku xirnay tabtii ugu gaariga noqon karkii iyo kulaylkii markii la yidhi halla bixiyeen habeenkii dambana cidda markii la maray raaytoori haddana hoos ka dhacay oo biyo ka bilaabo بعدين نكال وعاشرتي وعاصر عيون بيستي وجهه وكان والكين وكشري أصلي أنا أفكس كل خير وعنا دبعت أنا كسميني الحين أنا جيستر مركز لسمي هذا مالك أنا كسميني حتى هو السمي وكان داخلي ما يدلعني وهي يدقني وهي مش ولا يكشرنا ولا حلنا هذا السلام عليكم والله يا سيدة مكانك قاعد مغليسان باتويك جنك ومارك إنسك وجيستوي فربديهين waxaa kamid ah qayb inay suuxiyaan waxaa kamid ah qayb inay ceejiyaan waxaa kamid ah maaragtay qayb inay wax culus ku raraan oo meelo maaragtay baadiyaha iyo dhulka ay maaragtay ay wareejiyaan waxaa kamid ah qayb maaragtay inay maskaxda maaragtay ka dhaawacaan waxaa kamid ah in ninka darawalka maaragtay gaariga iska lahaa inay dhibka u geysteen oo isagiina uu galay gaarigiina waxyeeladii ay u gudubtay wixii oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa ayuu maaragtay ku soo saaray quraankiisa ayuu ilaahay maaragtay ku daweeyay haddeera waxaan arkaynaa gaariga oo la saarayo insha Allah oo bad qaba waxa la wixii laga bedelayna been ay ahaayeen oo maaragtay uu sidiisii uu yahay gaarigu arintaas ilaahay fadligiisa ayay ku ahaatay insha Allah biidnillahi tacaala waa gaarigii muddada 2 sano iyo ku dhawaadka fadhiyay ee isla markaana jinku galay oo qalabkii laga furay markii hore oo la sheegay inay halaysan yihiin haatan dib lagu celiyay isla markaana shaqeynaya taasina waxay ku timid Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa iyo awoodiisa iyadoo quraankuna uu yahay midka kaliya ee wax walba loogu hortagi karo gaariga wax ma ka xiyay alaabtii aad ka bedeshay oo dhan ma ku wada gurtay alaabtii aan ka bedelay waxaan ka bedelay dhan waa yaalaan injineerku dib u fiiriyay sida faafunka kale inuu shaqeeyo awalna in la bedelaa loo keenay waan shaqeynay maadaama gaarigaagii oo 2 sano geerishka ku jiray ilaahay quraankiisa xarunta aad timid ilaahay jinni uu maaragtay uu ku soo saaray oo ku fashilay isagiina uu qirtay inuu haleeyay ilaahay uu ku hagaajiyay gaarigaagii meel walba uu soo kama hagaagsan ma ku xamdiyaysaa ilaahay daacadiisa ma badinaysa ayay socod bismillaah dhaw socod